war degdega daawadayaal subax wanaagsan ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa saaka dhulka hawdka ah ee deegaano hoostiga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe waxa ay ka sameeyeen howlgallo culus oo ay ku baacsanayeen kooxda qawaarijta ah ee Al-Shabaab nala daawada ciidanka oo hawdka deegaano ka tirsan degmada Jilib hubka daranduuriga u dhaca ku garaacaya difaacyada kooxaha nabadiidka ah ee Al-Shabaab waa ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo saaka howlgallo ballaaran ka sameeyay degmooyin u dhaxeeya ama tuulooyin u dhaxeeya degmooyinka Jilib iyo deegaano ku dhow waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jilib iyo Bu'aale saaka ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayay kooxaha qawaarijta ee Al-Shabaab xilligan oo subax horaa xiriiraan la sameeyay goobaha ay dagaalku saakay ciidanku ku qaadeen ayaa waxay war ku sheegayaan in ciidanka Jubbaland ee dhowr jaha ay ka weerareen tuulooyin hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe howlgalladan oo ahaa howlgallo si weyn loo soo abaabulay ay ciidamadu waxa ay ku beegsadeen fariisimo kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe saad muuqaalada aad ku aragteen ciidan aad u hubeysan oo ah kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ayaa u daatay fariisimihii kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ciidanka ayaa ku garaacay hubkaas zuuga loo yaqaan fariisimihii kooxda argagixisada ah ay ku dhumalaysanayeen dhulkan zuuga lagu garaacay waa dhul hawda oo geedo badan waxaana ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ay ku guuleysteen in ay ka sifeeyaan guud ahaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab Jubbaland saaka waxa ka socda howlgalkii ugu ballaarnaa iyadoo maalmahan halkaas ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu doonayay in lagu weeraro goobaha ciidanka goobaha ay ku sugan yihiin kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiisha Jubbaland ee loo yaqaan Barjeex ay wadeen dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo ay kula dagaalamayaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab dagaalkii saakay ama howlgalkii saakay ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe waxa lagu qaarijiyay 12 dhagar qabo oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxayna ciidanku gacanta ku soo dhigeen hub iyo saanada military oo ka carray nabadiidka saad muuqaalada aad ku aragteen ciidanku waxay u daateen dhowr dhufays oo nabadiidku ku lahaayeen tuulooyin hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe waxayna halkaas ciidamadu ku beegsadeen horjoogayaal ku shiray ciidan ka tirsan kooxda qawaarijta Al-Shabaab oo doonayay inay abaabulaan kadibna weerar ku soo qaadaan fariisimo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin tuulooyin hoostaga degmada Jilib ay ciidanku waxay ogaadeen xogta weerarkaas iyadoo ciidanku ay ku guuleysteen in ay ka hortagaan weerarkii nabadiidku ay doonayeen inay ku soo qaadaan fariisimo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin tuulooyin hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xiriir dhow la sameeyay kuna sugan tuulooyin hoostaga degmada Jilib ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saaka ay qasaaro baan ay gaarsiiyeen kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab iyadoo ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in ay gacanta ku soo dhigaan hub iyo saanado military oo ka carray nabadiidka Al-Shabaab sidoo kale wararka ay sidoo kale waxay intaas ku darayaan in dagaalkii saaka lagu soo furtay hub iyo saanado military oo ka carray argagixisada iyadoo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiisha Jubbaland ay si wadajir u weerareen dhowr fariisimood oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumalaysanayeen kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab Jubbaland waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn ee howlgallada uga wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmahanba waxa si xawli uga soconayay howlgallada lagu la dagaalamayo kooxaha qawaarijta iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee guud ahaan bacagta mariyeen fariisimo dhowr ah ay ku dhuumalaysan jireen nabadiidka Al-Shabaab Jubbaland maalmahan waxa si xawli ugu soconayay dhaqdhaqaaqyada xoogan ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed maalmahanba ay doonayeen inay weeraraan goobo fariisimo ah nabadiidka oo ku yaala tuulooyin hoostaga degmooyinka Bu'aale iyo Jilib halkaas oo ay ku dhuumalaysanayaan argagixisada Al-Shabaab saako ayaa ka mid ah goobaha saaka ciidamada howlgallada ay ka sameeyeen waxayna ku guuleysteen ciidamadu in dhowr jaha oo hoostaga deegaanka saako ama degmada saako ay ku beegsadaan qawaarijta Al-Shabaab Jubbaland waxa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ciidamadu howlgalladaasi ka gaareen guulo aad u waaweyn markana hadaynu aadno deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan abaabulkii ugu xooganaa ayaa saaka waxa ay ka soconayaan tuulooyin iyo deegaano hoostaga degmooyinka Maxaas iyo Moqokori
wararka aynu halkaasi ka helin ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shalay uu sagootiyey taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka in ay saakayba ku ruqaansadeen jihooyin dhowr ah oo u dhaxeeya degmooyinka Maxaas iyo Moqokori waxaana ujeedka ciidankaasi yihiin sidii deegaanadaasi ay gacanta ugu dhigi lahaayeen warar saaka aynu ku helayno tuulooyin hoostaga degmooyinka Maxaas iyo Moqokori ayaa waxay sheegayaan in ciidankii ugu badnaa ee shalay la sagootiyey ee xalay ay ku hudeen tuulooyin aan ka fogeyn degmada Moqokori iyo Maxaas waxayna halkaasi ka wadaan dhaqaaqyadii ugu xooganaa oo ay kula dagaalamayaan kooxaha nabadiidka ah ee Al-Shabaab dadka reer miyiga ah ee degan dhulka u dhaxeeya Maxaas iyo Moqokori ayaa waxay sheegayaan in ay arkayeen ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo wata gaadiid dagaal aad u tiro badan waxayna dadku inoo xaqiijiyeen in ciidamadu ay kaabiga ku hayaan degmooyinka Maxaas iyo Moqokori oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha khawaarij ah Al-Shabaab guud ahaan gobolka Hiiraan waxaa si xawli uga soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka dhulka ayaa halkaas ku sugan si ugu hogaamiyo dagaalka deegaanadaasi looga sifeeyay kooxaha nabadiidka ah Al-Shabaab taliyaha oo dardaarinkii ugu dambeeyay shalay u jeediyay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in ciidanku ay ku dhaqaaqaan jihooyin kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab wuxuu taliyuhu xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatan u ruqaansan doonaan goob kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan nabadiidka Al-Shabaab wuxuu kaloo xusay in ciidankii ugu tirada badnaa ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhowr jaha oo ka tirsan gobolka Hiiraan ay ka weerari doonaan kooxda argagixisada waxaana xusay in ciidankan ay ku filan yihiin xoreynta deegaanada nabadiidku ay gacanta ay ku hayaan shalay ayay ahayd markii cutubyadii ugu badnaa ama kumaan kun oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo shalay laga sagootiyey deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan loona sagootiyey inay aadaan furimaha hore ee dagaalka uu kula hadlay taliyaha ciidanka dhulka deegaanadii ay joogeen taliyuhu wuxuu xusay inuu ku dhaartay in goob kasta ay joogaan nabadiidka Al-Shabaab in la weerari doono wuxuuna xusay in ciidanku u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah kooxaha khawaarij ah Al-Shabaab gobolka Hiiraan guud ahaan waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay saakay abaabulkii ugu dambeeyay ee ka wadaan tuulooyin hoostaga degmooyinka Maxaas iyo Moqokori wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in xalay duqeymo xoogan ee dhanka cirka ah ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan qaasatan goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan kooxda khawaarij ah Al-Shabaab teedaan iyo tuulooyin ku dhow ayay duqeyntu ka dhacday iyo burdaar waxaana halkaas lagu beegsaday koox ka tirsan khawaarij Al-Shabaab kuwaas oo halkaas ku shirsanaa sidoo kale goobaha ay ka dhaceen duqeymaha waxaa kamid ah deegaan lagu magacaabo Saqtiir deegaan lagu magacaabo Ceel Gorof halkaas ay ku dhuumaaleysanayeen kooxda khawaarij ah Al-Shabaab sidoo kale goobaha la duqeeyay waxaa kamid ah tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada burdaar oo ay ku dhuumaaleysanayeen khawaarij Al-Shabaab ciidankii ugu xooganaa ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kaabiga waxa ay ku hayaan una dhaqaaqeen degmooyinka Maxaas iyo Moqokori sida gacanta ugu dhigi lahaayeen waxaana dagaalka hogaaminaya taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Sahal wuxuuna xusay in ciidanku ay haatan u diyaarsan yihiin in ay xoreeyaan goob kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan khawaarij Al-Shabaab sidoo kale duqeymo xoogan ayaa waxa ay ka dhaceen tuulooyin deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaka dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyaguna waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe dhowr goobood oo ku tuhunsan yihiin ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha khawaarij Al-Shabaab ay ciidanku ugu guuleysteen inay saaka howlgallo ay ka sameeyaan sidoo kale fariisimo dhowr ah iyo goobo ay deganaaye argagixisada ayaa duqeymo dhanka cirka laga sameeyay waxaana jira qasaare xoogan oo la gaarsiiyay kooxda khawaarij Al-Shabaab duqeymaha ayaa sidoo kale waxa laga sameeyay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada dalka oo ku xusu karnay Jubbaland sidoo kale halkaasi waxa lagu bartilmaameedsaday koox ka tirsan khawaarij Al-Shabaab Baay Bakool ayaa kamid ah goobaha duqeymaha saaka laga sameeyay oo lagu beegsaday horjoogayaal ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab waxaana guud ahaan gobolada dalka qaasatan gobolka Shabeellaha Dhexe si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayaa waxa uu ku amray ciidanka in guud ahaanba hal jiha ay ka wada dhaqaaqaan hal waqtina ay wada dhaqaaqaan iyadoo amar lagu sugayo taliyaha ciidanka xoogga dalka ama taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa wuxuu amar ku bixiyay in goob kasta ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha khawaarij Al-Shabaab inay ku dhaqaaqaan wuxuuna xusay in uu bilowday dagaalkii dalka loogu sifeyn lahaa nabadiidka Al-Shabaab Shabeellaha Dhexe saaka waxaa ka soconaya abaabulkii ugu xooganaa oo deegaanadaasi looga sifeynaya kooxaha nabadiidka Al-Shabaab markan hadeena deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana ciidanku howlgallo ballaaran ay ka wadaan dhulka xeebta ah oo maalmihii la soo dhaafay gacanta ku dhigeen
gandarshe jilib markay dhanaane ay ciidamada howlgallada ay ka wadaan sidoo kale waxaa dhacay duqeymo dhanka cirka ah oo deegaanadaasi laga sameeyey oo ay ku dhumaalaysanayeen kooxda khawaarij ah al-shabaab daawadayaal wixii kusoo kordhaa howlgallada sida baaxadda leh uga soconaya gobolada dalka janalka ayaad ka daawan doontaan fadlan hadduu janalku ugu cusub yahay subscribe inoo saar waa mahadsantiin